la shaf gubi abo dadaadi shaf gub ay maqlaan soo xasuusayaan wala ilbaas leeyahay dawladda Soomaaliyeed oo lama sano jirsatay lama sano jirtaa oo joogtaa alxamdulillah ilaaha gaarsiin maxay qabatay labada sano dawladda ay jirtay maxaase u dhiman inkastoo xanta dadweynahana ay meesheeda taalo warisxamaas warisferna xan qof walbo oo ulul amri waa la xamanaa waa waxayna marka ammaan iyo xambe inaas diyaar u noqdo way qofka ulul amriga dawladda Soomaaliyeed laba sano ayay jirtaa maxay qawatay maxayse ama maxaase u dhiman ayadoo xanta dadweynahana arbita ay tahay firimbigan afka isku suran yahay barnaamijkaas ama qodobkaas waxa inoo akhri doono nin la yiraahdo luuq maro laazim la milad ma haysa yaa way ma ka sakartiin warka sab luuq maro laazim la milad ma hay waa Abdi Khani Triple A oo Mareykanka ku sugan waxa warkaan noogu soo diray waqooyiga Mareykanka isagoo jooga waa meel aad iyo aad u kala fog waa Muqdisho to Mareykanka amaana Allah Abdi Khani Triple A oo garoomada laga waayay number 9 ayuu ka ciyaari jiray oo kooxda faaliyaha qaranka ugu ciyaari jiray noveheena oo muddo badan soo nuuxsanin kacsan yahay Abdi Khani Triple A labada sano dawladda ay jirtay waxay qabatay iyo waxay oo u dhiman yahay aba laga rabaa noo faahfaahi yaabo wakaas ku soo dhawow barnaamijka faaliyaha qaranka oo aad muddo ka maqneed dadweynahana aad iyo aad ay kugu xiiseen adi iyo dadweynaha dhaxdiina anka dhaxbaxo dhaxdiina dooni futuluq laba sano ka hor bishan oo kale September Soomaaliya waxa ay ka baxday ku meelgaarnimadii waxa ayna yeelatay dawlad dhexe oo loo wada dhan yahay dawladdaas oo isla markiiba aqoonsi ka heshay guud ahaan caalamka oo idil sida dadku wada yaqaan Xasan Sheekh Maxamuud la yiraa aabahayna wadaad oo ganacsada oo ahaa hooyadayna hooyo guri joogay ahayd aabahay wuxuu dhintay 12 sano anoo jira waxaan ku dhashay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 1955 kaasina waxa uu ahaa ruuxii kasbaday codadka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ee dooranayay madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2012 سلام كجلال وحان ربا إنان أمهد عليو xildhibaanada baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ee waqtigooda iyo dhagahooda isiyay inaan halkan uga soo jeediyo barnaamijkayga siyaasadeed daawadayaal haddii aan dib idin xusuusino nuxurka khudbadii uu la soo sheegay shakhsiga ku guuleystay madaxtinimada Soomaaliya waxa ugu muhiimsanaa waxaan barnaamijkayga siyaasadeed ku soo koobayaa barnaamijkayga siyaasadeed saldhig u ah tiir 6 tiir oo aan u bixiyay tiirarka waaweyn ee dib u soo kabashada ama dib u soo noolaashada Soomaaliya haddaba barnaamijka faaliyaha qaranka ayaa waxa doog bir u qaatay si uu ku soo ogaan lahaa xanta ugu weyn ee shacabka Soomaaliyeed ku sheekaystaan sidaa darteeda dawladdan 2 sano jirsatay shacabka Soomaaliyeed maxay ku xantaan aniga iyo saaxiibaday dad badan saaxiibada waxaan bilaabnay dood war maxaa dalkani maxaa laga qaban karaa marba waxba isku dayday discussionkaas iyo doodahaas oo dhanba igala qayb galay qaar ilaa maanta aan isla socono taas marka waxay nagu dhiirigelisay war waxaan aan galna markaan bal aan anaguna aan inta galaysa ee raadinaysa aan noqono oo model aan noqono so let me get this straight hadaba waxaad ilaaday raggan la fiyo hore waa camal okay sheekada gormay soo bilaabatay marka mudane madaxweyne markaad ka baxdo xayndaabka amisom madaxweynaha waxa la yiraahdaa wuxuu galaa xayndaab xisbi yar oo isaga minaha ku heeransan وهلا ويدي مدحوينها سؤال لو ويدي كلا دنبني احترام هجرته جواب وافئة وقنا عضان ولا إيدين سيناها استعطنت
تفضل يا سعادة الرئيس. مدحوينها iyo xayndaabkiisa iyo dadka ku wareegsan hadda u malaynayo in wax badan dalkan u taray madaxweyne kaligiis meel taagan madaxweyne agtiisa mar walba waa sir u wareegsanaadaayo dadku aniga waxa jooga dad iyo jooga in ay khubaro yihiin oo xirfado gaar ah leeyihiin awgeed madaxtooyada ugu baahan tahay oo ama xirfadahaas kuwa siyaasadeed ha ahaadaan kuwa dhaqaale ha ahaadaan kuwa magiciisaada waxay jooga dadka dawladnimada ay kala dhaxayso dhan kasta وحضرها كحين دابن ريغدها كحين دابن جلجيدا لسودي جري حتى شكل مد العملين لكن كل ما صار الجيل سومالي محمد مسؤولية وقت بغنطح إذن كينا ومرب بلنتهين ما انت هو رئيسي مدحوينها للضغطي حتى الجزيرة وهو دور أرضي ساد الشيء إسلامك تكبالك بالله شاكري سيدي أسوأ سعودة إلا إيبين الصومالي دحلنا الإسلاميين إنتاز دولة عياروناي ديليسي بلا روز بلا جالو بلون باس نظيف حتى كوكي رمضان كوا أكتهين برامج عامرات وأفر شهر أولي كنا ماتي دور حلبان إيو شغالة دولة كوب حين ماشاس إلا إيو ودنبين إن يرقات كي مدارة إطرات اليال مدحوينها سيدان ummad sideedaba madaxa ayaa xukuma madaxweynaha xukuma madaxweynuhu si sax ah oo raganimo leh oo geesinimo leh haduu u hogaamiyo ummadaas way isku dubadhici haduu asagu uusan waxba ahayn ama jilicsan yahayna waxba ma hagaagayo waxaynu nahay wadan dagaal ku jira wadan dhibaataysan wadan argagixisan la diriire waxaan u baahanahay oo su'aasha ku soo gabagabayn mudana madaxweyne wadankani wuu ku baahan yahay kolkii lagu dooranayna Soomaali oo dhan way faraxday wayna isku ka raacday waana la abshiraystay qalbi jab weyn baa ummadda ku dhacay waxa la fadhabar oo ah dhibaatada jirta wadankii oo u baahan ummadda qalbigooda inaad la hadashid ummadda inaad midaysid aqliga Soomaaliga iyo shilinka Soomaaliga in lagu meel mar hadii adduunyadii waxayna la qaban weyday waxaan tuhunsannahay meeshii adayg iyo go'aan geesinimo leh looga baahnaa inaadan la imaanaynin boqol goorna lagu sheegay wax tala oo ka dhiman ma jiro madaxweyne su'aashu waxa weeye ma dhaqankii horaad ku socon isawaad isbedeli talooyinkaas marka ay soo baxeen kadib madaxweynaha kabtanka kooxda waa la isugu yimid waa la isku tashtay filmizoonkii alaabta Brazil 44294 shakada sidoo waa la bedelay filmizoon cusub 3-5 laba bedelay difaac oo dhan waxa loo dhaafay ragga idinka baa xamatiin xayndaabka saaxiibada micnaha shaqadooda waxa badan goboladan maamul goboleedyada sida la isugu toosin lahaa baarlamaanka dubuuqkan sida loo kala furfurla iyo iska badan yahay qaarooyin hoolo waaweyn waaweyn قبل دحين وحلل السي أرضي from السودان كيلو صحة على طول كمان أفكار دفاع قبل دحين أفكار إنه حلل السي إذا ما عم يسوي ملترك الصومالية للقاها وحياة بس اللي أصيبوا فيها هي كنا إلا اللي جار له كل حيث هناك فالمزيون كاسمة الدولة يكون صوت شيء إسبدل وين أيام مجال دي كم مخطئ لكن الصومال ما ورد بعد فيسه حنطة إسكسر عطا وبدنا حللها khudbadii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya markuu madaxweynaha noqdo uu jeediyay waxa kamid ahay qof dambi galay ee maxkamadu xukuntay inuusan cafi doonin asagoo awood u leh inuu cafiyo ayuu noo balaqaaday waxaan ognahay Cabdi Maxamed Ismaaciil oo ahay taliye ciidanka asluubta oo lagu helay maxkamadu ku heshay inuu la shaqeynayay nimanka cadawga ah ee ummadda la yiraahdo